madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad casho sharaf oo uu ku maamuusay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni kulanka sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan wasiirro iyo xildhibaano heer maamul goboleed ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay ku sugnaa Garowe ayaa kulamo miro dhal la yeeshay madaxda sare ee dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Cusmaan wada hadalladan waxa ay ku qotomeen madaxduna ay la fagureen habka ugu habboon ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed la isaga kaashan karo gurmadka abaaraha iyo sidoo kale ka hortagga argagixisada mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale ka wada xaajooday arrimaha ku gadaaman dowlad dhiska Soomaaliya iyo sidii si wada jir ah maamul daadejinta looga wada shaqayn lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mudnaan siinaya bulshada rayidka ee Puntland si uu dhageysto aragtiyadooda ku aadan dowlad dhiska gurmadka abaaraha dib u heshiisiinta iyo kala horreysiinta wax ka qabashada baahiyaha bulshada si loo xaqiijiyo hanaan maamul oo ka duula dareenka shacabka kuna shaqeeya rabitaankooda safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Garowe waxa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Abshir Cumar Jaamac wasiir dowlaha madaxtooyada qaranka mudane Abshir Maxamed Axmed ku-xigeenka agaasimaha guud ee Villa Soomaaliya la taliyaasha madaxweynaha ee arrimaha dastuurka federaalka iyo la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed madaxtooyada Puntland Garowe